ninkan aad arkaysaan ee gadaashayda ka muuqda ayaa xalay mar kale la soo qabtay isagoo isu ekeysiiyay dumar sidoo kalena soo xirtay dharka gabdhaha ama dumarka sida xijaabka niqaabka ama indhashareerka iyo goono. waxaan idin hayaa xog ku saabsan sababta ku kaliftay inuu dumar iska dhigo waxyaabaha lagu ogaaday inuu ninkan dumar ahayn sidoo kale uu soo xirtay dharka dumarka halka uu ku dambeeyay xaalkiisa intaba. xogtaas oo dhameystiran muuqaalkan ayaad kaga boodi doontaa haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkan sidoo kale aad soo booqato page-ka YouTube-ka Amira Suleymaan fadlan follow dhayna soo raac inagu soo biir muuqaalkana like gare sidoo kalena share dheh oo gaarsii saaxiibadaada kuugu dhow aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. ninkan aad u jeedid sidoo kalena ay adag tahay inaad si fiican u kala saarto inuu yahay rag iyo sidoo kale inuu yahay dumar intaba ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho isagoo isu soo ekeysiyay dumar sidoo kalena soo xirtay niqaabka indhashareerka iyo sidoo kale xijaab weyn si uu u ekaado dumar. ninkan ayaa waxaa lagu qabtay isagoo dhaxlaafyoonay sidoo kalena dhaxmaray isbitaalka Yardameeri ee magaalada Muqdisho. waxaa ka shakiyay hay'adaha amniga waa la soo qabtay hadda wuxuu ku xiran yahay saldhigga degmada Xamar Jajab. xaaladiisa iyo kiiskan ay dawladda iyo hay'adaha amniga gacanta ku hayaan iyagoo sheegay inay xog faahfaahsan ka soo bixin doonaan. waxyaabaha cajiibka ah ayaa ah in isbuucan ay tahay ninkii saddexaad ee la helay ama dawladda ay qabatay sidoo kale ciidamada amniga ay gacanta ku dhigeen isagoo isu soo ekeysiyay qof dumar ah. lama oga sababta ku kaliftay inay raggan haatan isu ekeysiyaan dumarka. dhawaan ay ahayd markii nin isu soo ekeysiyay dumar sidoo kale isticmaala inta badan social media ama baraha bulshada Soomaalida ay ku xiriirta laga soo gudbiyay xogag sheegaya inuusan ahayn gabar sidoo kalena uu yahay wiil. ninkan oo live of badan ka sheegay sidoo kale lacag badan loo aruuriyay ayaa sheegay inuu dhibaato badan ay haysato sidoo kalena uu qabo cudurka macaanka sidaas la ajligeena Soomaali badan ay ku kacday sidoo kalena uu ku helay $10 oo lacag ah iyagoo dad badan oo social media caanka ay lacag badan ugu aruuriyeen live of-kooda. dhibaatadan haatan taagan ee ah in ragga ay isu ekeysiyaan dumarka sidoo kalena oo ku soo korortay magaalada Muqdisho ayaa inta badan dad badan ay siyaabo kala duwan uga hadleen. dad badan ayaa sheegay inay arrintan la xiriirto dhinaca amniga hase ahaatee dadyow badan ayaa ku dooday inaysan ahayn xaalado la xiriiro amni tan ay tahay qoom bedel ama sidoo kaleeta ay ku soo badanayaan dadka Soomaaliyeed waxyaabaha reer galbeedka inta badan ay isticmaalaan ee ah in qofka interest uu siiyo jinsiyad uusan isaga ahayn isagoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dooray inuu ka dhigo rag sidoo kalena uu door bido isaga ama maciinsada inuu noqdo ama iska yeelo qof dumar ah. xaaladan soo korortay ee haatan ka taagan magaalada Muqdisho ayaa dad badan hadalhayn badan ka dhalisay gudaha magaalada Muqdisho iyo social media intaba. hase yeeshee ninkan ayaa haatan hay'adaha amniga ay gacanta ku hayaan kuna xiran degmada Xamar Jajab saldhig ku yaalo. wixii ku soo kordho haatan halkan ayaad kala socon doontaan. fadlan muuqaalka share garay laag haddii aad YouTube ka daawanaysan subscribe aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.